السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرك عن ربنا maanta inaan ka hadalno oo waqtigiisu uu gaaban yahay waxa uu ka hadlayaa psychologiyada waxbarashada ama cilmu nafsi tarbawi educational psychology. casharkeena ugu horeeya arrintaas uu ka hadlaya waxaana ka koobantahay sida aan u jeedno maadaama uu bini aadamka ilaahay abuuray qofka aan wax barayna qof bini aadam uu yahay waxbaridiisa wax badan baa saameeya ma aha cajalad wax lagu duubayo laakiin waa qof laga rabo waxa uu bartay inay bedelaan isagana uu hadhow wax bedelo marka qofkaas habkii aan ugu wanaagsan aan wax u bari lahayn habkii aan wax badan uga bedeli lahayn waayo naftiisu waxaa laga yaabaa waxyaalaha oo qofka aad u saameynaya iskoolka inta aan joogno ama waxbarashada ku jirno dad aad wax u baranayana waa aragnaa qolo ay waxbarashadu ku adag tahana waa aragnaa kuwa dhexdhexaadana waa aragnaa marka cilmi baarisyada badan ee la sameeyay inaan ka faa'iideysano habka ugu dhow ugu wanaagsan ee aan ardaygeena wax ku bari karno si aan u soo saarno qof dhinac walba ka dhisan waxaa ku qoran u jeeda meelaha ku qoran qof aqoon leh xirfad leh dareen wanaagsan iyo akhlaaq leh ereyga ugu horeeya waa iska psychology waxaan ka fahmaynaa in psychology-gu yahay in la daraaseeyo bini aadamka iyo dhaqankiisa iyo maskaxdiisa say u shaqayso bini aadamka daraase in lagu sameeyo waayo qofka waxaa ku jira intaasoo shay oo isu suran oo isla socda mar wuxuu leeyahay inuu wax jeclaado mar inuu wax naco mar inuu cabsado mar inuu ku farxo shay uusan ka baqin waxyaalo badan oo laba u socda oo bini aadamku leeyahay oo in la daraaseeyo u baahan marka psychology-gu wuxuu daraaseynayaa bini aadamka uu daraaseynayaa waa laga yaabaa in daraasaadka qaarkood lagu sameeyo lagu soo tijaabiyo marka hore xayawaano laakiin waa in daraaso ay socon kartaa bini aadamka lagu tijaabiyo bini aadamka marka wax badan lagu tijaabiyey waxyaalahaas marka wixii fiican oo dhan oo wanaagsan inaan ka qaadano waxaa laga yaabaa haddii la rabo shay in lagu jeclaysiiyo shay in lagu jeclaysiiyo waxbarashada raba in ardayga jeclaysiiyo waa in wax uu jecel yahay aan ugu xiraa hadda hadiyadaha la keenayo oo qof la siinayo waxaan u maleynaa hadiyadda qofka loo keenayo waxay ku jirtaa gal aad u qurux badan marka qofkaasi waxa ku jira ha ku jiraane laakiin galka quruxda badan ee la geliyey wuxuu ku leeyahay saameyn ku leeyahay مثلا aragtiyada oo waxbarashada oo psychology ku jira waxa kamida qaar ka ah qofka in la cariyo kadibna la saameeyo qofka in la kiciyo markuu shaygu diyaar u noqdo Soomaalidu waxay tiraahdaa gees loo kuleelka lagu gooyaa qofka inaan u diyaarino waxbarashada kadibna waxa aan rabno in laga bedelaan ka bedelno مثلا هذا مثالada oo dadka psychology-ga cilmi nafsiga loo isticmaalo waxa kamid ah hada dadka waxa la rabaa مثلا in dhulka la jeclaysiiyo marka dhulka la jeclaysiinayo maxaa la oranayaa dhulkii hooyo maxaa hooyo loogu xiray hooyan jecelna marka jacaylka hooyo saa dhulka hooyo ugu hayno dhulka hooyo waxa isku xirmaaya dhulka iyo hooyo waa laba shay oo isku xiran soo ma noqonayaan jacaylka ma marka waxyaalaha oo nafsiga shay aad jeceshahay in lagu jacaylkiisa lagu xiro mid kale marka cilmi nafsiga psychology-ga oo cilmi waxbarashada psychology-ga wax kale ma aha waa waxbarashadii iyo psychology-ga oo la isku daray oo labadaas in la isu keeno oo qofku su'aalaha laga jawaabo oranaya maxay ardada qaarkood aad wax ugu bartaan maxay ardada qaarkood wax u baran waayeen oo u gaabiyaan inaan ka jawaabno su'aalaha ah maxay loo horumarin karaa waxbarashada ama wax dhigidda
taasaa meelaha ay xoogga saaraysa wey. sidee wax u bari karnaa ardageenna? qof aan wax baran karin ma jiro. waxaan u malaynayaa qof weligiis idinka mida oo dhigtay darsi adag ma jiro. darsi adag ma jiro. maxaa jira darsi cusub. waa kugu cusub yahay maahan ma adka. qof kasta marka darsigaas wuu baran karaa, qof aan baran karin male. laakiin waa in qofka loo diyaariyaa inuu darsigaas barto. haddii aan maalan aan caajis nahay oo aanan kici karin, oo qof kasta uu leeyahay wallahi anigu waa daalanaho ma kici karo, ilaahay kama dhigay haddii qof qori la haadaya meeshaan ka soo galo waxay ila tahay waxa fadhiyaa waqti yar kadib waayo ma jiraan. waana la kiciyey orod aanan ku jirin aan galnay, mana uusan nahayn, tabarna uma hayn. waxaan u baahannahay ardadeena inaan u diyaarino inay wax bartaan. marka inta meelaha wax looga diyaarinayo oo dhan weyn waxbarashadeenna sida ka muuqata waa in shayga qofka marka hore aqoonta uu bartaa, xirfad uu yeeshaa, kadibna akhlaaq iyo dhaqankeedu yeeshaa. waan jecelnahay cayaartan miitaal usoo qaadanaya kubadda cagta oo aada loo fiirsado. kubadda cagta marka aad rabto inaad cayaar aada gasho, cayaartoy noqoto, kow waa inaad qawaacidda iyo xeerarka cayaarta aad taqaanaa. soomaa in lagu baro, waa inaad barataa xariiq hebel halkaas weye, xariiqdaas waqtigaa lama galo, kubaddu hadday baxda saasaa la yeelaa, gacanta laguma taabto. waxaas xirfad maaha, waa nidaamkii iyo xeerarkii wey. maxaa ku xiga? inaad xirfad leedahay. xirfadaa la isku dhaafay xirfadii lagu cayaari lahaa. haddii casharkaas nala siiyo cayaarta iyo qaacidooyinkooda annagoo galaaska fadhina oo nala geeyo meeshii, ma cayaarina? ma cayaari karno. xirfadaan u baahannahay, xirfadii lagu cayaari lahaa. kadib waxaan u baahannahay markaan samayno dhaqankii akhlaaq wanaagii loo baahnaa. xeerarka aadaa u taqaanaa, xirfadda lagaama badiyo, waa kudka ugu dheerayaa tahay, laakiin garoonka marka la galo waa caytamaysaa, dadka waa jijabinaysaa, qof kasta waa la diriraysaa, qofka maarata garsooraha ah waa la diriraysaa, qofka caadiga waa feeraysaa. maxaan ka baranay? dhaqan waa lagu saaray, dhaqan xumaa lagaa saaray. maxaa la bixin jiray? jaalle iyo kadibna qofka marka waxa loo saarayo dhaqan xumadaas oo la ganaaxayo, qofka aada u yaqaana, laakiin waa garabaa anu ma kala aqaanay cayaartooyde. ma jiraa mid cayaartooya oo midkana qalinyo ku tolay? ma jiraa? magaciisa ma aqaan, haddaan bartana waa iga dhumayaan. laakiin mid cayaartooy ah oo mid kale qalinyo waa jiraa soo maha? dhaqankaas waa ujeedaa. cayaartii waa taqaanaa, laakiin dhaqanka waxa ilmaheena aan barayna waa in intaas laga helaa soo maha? mideena kale qoladeena fiirsanaysa xataa ani ardada waxaan ku idhahdaa war cayaarta aad fiirsataan maxaa ka faa'iidaysan? maxaa laga faa'iiday? waa fiirinay xirfadaha fiiri, laakiin maxaan ka faa'iidaysan karnaa? wax dhaqana ma lagala bixi karaa oo marka aad cayaaraysaan aad ku dabaqdaan dhaqan wanaagsan? bal fiiri dadku say isugu gudbinayaan, soo kama dhaxayso wadaag, soo wax kama dhexeeyo in wax la wadaago. oo hal qof keliya inuu kubad qaado keligii la ordo wax ma tarto. wadajir, iskaalmaysi iyo tacaawul ma ka faa'iidaysateen? dhaqan wanaagsan la ismacaynayo, si asluubla loo dhaqmayaa ma laga faa'iidaystay? meesha garoonka iyo si uu qurux badan yahay iyo nadaafadda ma ka faa'iidaysanay? jeegada iyo say u jaran tahay miyaan ka faa'iidaysanay? haddii marka qofku uu fiirinayo oo keliya, qofka xirfadaas ma fiirinaye wuxuu ku leeyahay waxaan ku maqanahay timaha bidbidaya iyo jeegada siday tahay. maxaan ka baran? dhaqankii aan baran lahayno saxsanaa aw. hadhow markii annaga aan cayaarteena meelahayna ku cayaarayno, qaylada ka yeeraysa cayaarta, sida laysu caayinayo, aabbaha iyo hooyada la israacinayo, xumaanta caayadooda, qofka jabinaya,
waxaasoo dhan marka waxay u baahan tahay xataa haddaan cayaar fiirsanayo waa inaan kala baxaa dhaqanka wanaagsan waa inaan kala baxnaa oo qofkaasu yidhahdaa cayaar haddaan fiirsado xataa waa inaan kala bixi karaa cayaar dhaqan fiican miitaalkaas cayaarta ah waxaa laga helay casharkii oo ah nidaamka cayaarta oo la bartay waxaa laga helay xirfadeedii oo la bartay waxaa laga helay dhaqan wanaagsan oo dadka lagula dhaqmo cashar kastoo aan dhigayno intaasu u baahan yahay cashar kastoo aan dad barayno cashar kasta haddaa hadda aada rabto inaad barato harqaan haddaad rabto inaad combyuutar barato shay kastoo aada baranayso wuxuu rabaa dhaqankiisa iyo xirfadiisa qofka kaamarada haya ee wax sawirada bartay casharadu qaatay sawirada xirfadu qaatay akhlaaqna waa lihaanaya hadhow markuu rabo inuu wax soo bandhigo wuxuu soo bandhigayo meelaha qaarkood kama jarayo meelo aan ku habboonayn waa ka jarayaa wax si u dayacan hadduu arko waa ka reebayaa qof aan jid iska maraya iskama sawiranayo akhlaaq iyo dhaqan ay u baahanta meel walba geeye shay kasta baro akhlaaqda iyo dhaqanka iyo cilmiga kulli waa u baahan yahay